in dadka oo dhan la yiraahdo codeeya oo cid ummadda madaxweyne u noqonaysa ama matalaysa oo codeeya waa farac kamida furuucda dimuqraadiyadii aynu ka hadlaynay waana xaq qof walba la siinayo qof wax kala garanaya ummadda qof u doori kariyo qof kalaba dadka oo dhan baa siman sida aynu su'aashii hore jawaabteeda ku sheegnay oo u siman inay ka taliyaan cidda ummadda madaxweyne u noqonaysa iyo cidda ummadda matalaysa dadka oo dhan baa u siman wuxuu islaamku yaqaanana maaha haddii cid cod la weydiinayo la odhanayo bal masaladaas sida idinla muuqataa ka taliya waa ahlulxalli walcaqdiga weeye waa dadka ummadda wuxu doori kara ee caqli iyo cilmi iyo go-aan iyo talo ummadda wax ugu doori karaan leh waa shuuradii aynu sheegaynay weeye codaynta noocaasana islaamku ma diidana laakiin waxaan la odhanaya cid waliba ha codayso marka horena ay ka horeyso ummadda in la qaybiyo xisbiye laga dhigo xisbiye loo tartamayo qabyaaladiina ay noo raacday wax saxa ma hatan waxa quraada culimadu ay ka soo reebaan haddii daruura keento salaan ay noo noqoto gaal laba is soo sharax midna waa gaal midna waa muslim xaaladaas oo kale dee daruura keeni karta in aanu raahno ruuxu wax saxa ma weyn ognahay laakiin daruura markay keento baqtigaba waa la cunaa ka muslimka inuu codayn intuu gaal nagu soo bixila ama mid shiici iyo mid sunni inoo noqoto inuu kala dooran laakiin bal idinkaan idin weydiiye maanta dadku maxay wax ku kala dooranayaan dadku xataa qof dooran maayaan qabiil bay dooranayaan ma odhanayaan xataa keeba innaga inoo dana soo degmama degenin lixilaatanka junleedha dadka degeni isma weydiinayaan waar degmadan keebaa hadhow wuxuu qabanaya u dana yaa reer hebelaay weeye keebaan isku qaban wuxuu doonaya ha noqday aad bay u yar yihiin dadka sidaa u fikiraya maanta waxyaaba la yaab kale waxaa ka mid a bal qofka magaaladu deganaa isagu aan ka codaynaa in ka warrama ee inta gaari lagu rara magaalo kale ka codaynaya muxuu u codaynaya kaas reer hebel halkaa xildhibaana ku yeesha tiisi wuu iska ilaabay ilaa hadduu u codaynayo ha laguu shaqeeya adiga halkan uu joogo dee cid ka sharaxan buu u codayn laha sooma dadkan geediga u miidan arag sii socdee soo socda la raraya un halka iyagu joogaan damba kama lahaba marka innaga waxay noo weheliyaa waa taas in qofkii lagu dooranayo qabiil xataa qofkii aan la eegayn diintiisa shakhsiyadiisa ammaanadiisa waxqabadkiisa kuwan baa hadhow tola ka cabaaday oo ka qaylinaya odhan waxba noomu qaban oo marka hore maadaa u doortay in wax kuu qabto niyadaaduba saamay ahayn inama alacmaalu binniyaat suma rasuulku وإنما لكل امرئ ما نوى قفل بوح نيودو لي ده واحد نيوتي رير هبليني حلبان كويا شان برلمان كما قولها ديغان ده كويا شا waxa ku tarto inta niyoote heshay maada niyooday baa inuu qofkan xuquuq qabto marka dooranaysa maada doonayay baa adigu maada uu eegay marka hore inuu wax qabto ma deegin baa adigu qaar koodna de waxaan laga sugayo ma qaban karaan ba dadku ma way fahminba ninka baarlamaanka gal horta muxuu ku qaban karaa adiga shaqadiisu waa maxay xeerarka ay waxa inuu ka shaqeeyo weeyaan shaqadiisu waxa uu badan waa inuu kelmad yiraahdo rawaarde gobolkii laga soo doortay waxa loo sameeyay isagu muxuu ku qaban karaa ku haysan khasnadiina ma dul fadhiyo amar iyo fulina ma laha isagu hadhow baad oranaysaa maxaa wax noogu qaweyn muxuu ku qabtaa aduu kula mid yahay xagga wax qabashadeed marka inay daruura un keento mooyaane waxa noocan ee booshaaq ahi